wadayaal halkan hadda ku suganahay waa xarunta guud ee dabdabiska Somaliland oo ku taal magaalada Hargeysa waxaana hadda sida aad arkaysaan barbarkayga taagan dhalinyaro fara badan oo u carbisan daminta dabka sida la wada socotaan xaruntan dhawaan dhalinyaro ka shaqeysa waxa soo gaaray dhibaatooyin ayagoo dabkaasi daminaya taliyaha guud ee ciidamada dabdamiska gaashaala sare Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili waxa uu iga waramay xaaladii u dambeysay ee ay ku sugan yihiin dhalinyaro ka tirsan xaruntani dabdabiska oo dhibaato ka soo gaadhay ayagoo dab magaalada Hargeysa ka baqtiirayay shacabkii ay u gurmanayeen wallahi laba inanba horta aad u cuslaa inan isagu markiiba waa la tolay ninka ku leeyahay xiribaad dushiisa oo عبارة دكتور كشري ولا صوصاري إنما بعد نقول ليتيو لوح وين ولا يري أديك على قصة وداي أيه إسقى على قصة مركا إيش شاب بدي يتوارد بابورتيركي سلام مركيبا والله صبودنا دكتور وين ما نكيني هذانا ترانسفير وحنو جيني منحل هذانا ترانسفير وحنو جيني international hospital كا مركا سلام مركيبا يجي بقعدك مقابته يدي وانو حاجاتنا إيشان مركا إن شاء الله ده وحنو فيلنا إن هدي على كديجو إيش عسي إنكي dib ugu soo dhawaa xaqdar lagu diray gadar lagu diray isagoo mujaahido dadkii baqtiinaya ayana markaas soo gaaray marka waxaan aad iyo aad ugu rajo qabnaa wixii karaankayga iyo dawladdu waxay u kartayba inankii gacanta lagu haya dhakhtarkiiba ku jiro operation loo sameeyay oo doraata loo sameeyay marka shalay iyo maanta ayaa ka soo wareegtay waliba inanku niyad fiican buu nasiyo wuxuu yidhi doraata markii la qalay shalay markii la dheeyay laga furay bandage-ka وحيد هايد بداركي هايد مركا ده أنا ودو عينه إن إلهي أرجع يسوع عليه إن يردان يرى أو تضيع تنشرة أو مو قيسة والله وتكمل الدلاعسة بل نيكا أنتو قاري سوق عتي إيش كسر صار إنك ما هيستان نيكاس ولا وضع هيا قار بحث بكشران لكن بدو كود ولا هيا أنت بهيمك أنت بحثنا والد كود وحران سلية كود بورنا وكوشران إمكان باريسي أرنتاسنا بليسكا يا يرادا وعربسان إن يدبك الدميان محد إلى لا أفرعين ويد إن بدري وسؤال أضف عن إن هرتا وحيابه وحشرة أنا مركوري بكفيرن إن دتك أقول يحكوا السميان قف يدي كالي قرية وجبنايا هذا نوع كدليا تهرتا تام فيلانيسين مرلبادا بليسكا يا سوكر ماذا إمك حافظة تيجيار وكلام كانوا قرمينه سلام مركبة تلفون بلو درا وحاسو قرمدا سليقة بليس كوي على كودبور هذه مع هارون أنو قرمنا بليس مع هارون بسو قرمدا هذه شير أنا كهور دارينا بليسكا إمك كدبنا أسكر هالك دوتشوك تو باور دان بارك نقلا قرمنا يا مركا إمك سيدي هورد برهدي إنه بس صوتوريو تروح الله فريسة بالي أتبتلي وما ستاي شكرا بارك الله عادي مفهوم عادي مشكلة واحد هاي دad waxoodii laga ilaalinayo teebadriyo mushkilad waa mushkilad marka dhagax la soo tuurayo bir la soo tuurayo biris markoo kan ee kuwi kala ku soo wadaaranaya marka bal badriyo adaan ku dhiibay bal jawaab maxaad u haysaa dad iyagii loo gurmanayo oo iyagii ku soo dilaya anigu su'aashaasi meelan ka jawaab ka bixiyo uma hayo intaas ilaa 40 sano ka soo shaqeynay dabdamiska iska dhaaf kuwa jooga guriga ku gubtay maahay kuwa kale dhaqawaaqa markay maqlaan ayad moodeen in libax cunayo boqolaal meel bay ka carran inagiina baabuurtii iyo meeshii gubanaysa gudaha loo soo galaya marka su'aashaadii channelkuna aad noo shaqeeya booliisku aad noo shaqeeya dawladdu aad noo shaqeysa xukuumadda dhexe iyo sareba si fiican noo shaqeysa laakiin bal adigu nin jeebadiisa kala xadaya يا إلى كره dadka laakiin waxa la yiraahdaa cabashada inta badan ama media soo gaadha ama meel kale soo gaadha qaarkood dhaqaalaha ay qaataan oo yar bay ka caawdaan qaar kale waxay ka caawdaan xarunta guud maamul bay kala leedahay agaasimayaal waxaad waxbaad sameeysan kuwa laftooda waxa la yiraahdaa taabasho iyo taliyuhu qof wata iyo taytal caynkaas lagu kala magacaaba marka ma jirtaa ay shaqaalahan lacagtoodu yar tahay xidalkana aydaan u eegin aqoontooda arintaasi waxba kama jiraan system kan waan dalka keenay waa system aan garab aqoon wasiir aan aqoon suldaan aan aqoon cidtoona badriyow halkan ay waraaqada yaalin warxmatashiil nin shaqaysan waayo boorta waxa ku shaqaysta
halkan marka imtixaanka aanu qaadin amba dabdamiskii ugu horeeyay aanu qaadin amba imka baanu qaadano hadiyo jeer wargeysiyadan ka sii deenoonano dabdamis baa la rabaa idinba waa maqasheen marka halkan nagu yimaadaan wax criteria leeyahay ama muwasafaad ayaan ku qaadanaa ninku waa inuu dhalinyaro ahaada 29 jir aanu ka weynanin waa inuu 1 mitir iyo 75 uu ahaada dhererka waa inuu 70 kilogram noqdaa waa inuu ugu yaraan secondary dhameeyay ama jaamacadu dhameeyay oo aanu markaas iskuul ku jirin leena 12 saacadood war shaqeynaa nin iskuul tagay kuma shaqeyn karo marka intaas markay aan kala saarno ayaa waxa soo fariistay imtixaanka gudidii sameysay dabdamiska iyo anagii iyo imtixaankii qaadina iyo maxaa la yiraahdaa hay'adda shaqaalaha intaas meesha wada fadhiisana marxaati baa loo waday tan Hargeysa ka sameynay taburcan ka sameynay tawajaran ka sameynay iyo taboran ka sameynayba marka halkaasina aan xalada ka iman karin aad baa ogtahay dhaqaalaha waxaan ku sheegay dhaqaalaha ugu badan inay qaataan dalka askariga imika maskiinka jooga ama frontka amba maanta askariga Hargeysa jooga wad garanaysaa intuu qaato dhaqaalaha kay ku qaataan ninka askariga maanta hadii lagu soo qoro milyan 700 baa lagu siinaya xageed ku artay askari milyan 700 qaata annagu waxaanu dawladda u fidinay oo nu weydiinay maadaama 12 saacadood shaqeyno maadaama waxaygu yahay gariir nolol maadaama trainingkiisu aad u badan yahay in nolo ilgaarana lagu eego oo dhaqaalaha inta la siiyo madaxnimadana wax ka soo baxaan iyaga markaan imtixaan ka qaadno ma kala naqaano ninkana ku xiga anigu soo taliimahay maanta kitaab quraan aan saariya inaanan 200 ninna aanan ka keenin ugu dambeyntii taliye Sawaaxili waxa uu fariin u diray shacabka isagoo u sheegay telefoonada lagala soo xiriiri kara xaruntani waxa taliyuhu ka digay oo uu hoosta ka xariiqay in loo soo diro telefoono beena taliye Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili oo arintaasi ka hadlaya waxa uu yiri horta annaga barada nalagu soo xiriiri waxa weeyaan 9 eber oo aan number kale 063 waxa lagu madarayo waa 9 eber dadweynahana waxaan ku wacyi gelinayaa ilaawa numberkan 999 ilaawa waa booliska marka dadweynaha waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa in 9 eber dabku hay yaraado oo ha ka bilaabo wax yar oo guriga aba ha weynaado labadaba dabdamiska u yeero haddii aan ku soo gaarno dabkaasi aan wax ku yeelin oo marka aad idinku fasi baqtisaan waxa la yiraahdaa late fire baa la yiraahdo cidi adiga ku qabsan mayso waliba waan ku amaanana digtoonida aad sameysay marka dadweynuhu hada jeer waxay yiraahdaan marka hore waxaan moodinaa dab yar laakiin uu nagu weynaaday marka dadweynuhu waxa leeyahay dab yar haddii xataa uu shaar gubanayo uu yeero dabdamiska waan ku imaynaa idinkaan idin shaqeynaa anigu 4 saacadood waxaan halkaas u xidhanay baabuurta ugu fadhinaa idinkaan u shaqeynaa marka waliba hadiyad baan ku siinayna oo waxaan recommendation waxaan ku siinayna oo wacyi nin soo jidaatay marka 9 eber anagu soo xidho dadka beenta markii hore nagu deey jireen markii aanu soo qabanay Telesom iyo Somtel aan ka daba tagno telefoonkii la soo qabtay xarig bay muteesteen waxay muteesteen inay bixiyaan cadibaadii annaga nala soo cadibay ilaan waxaan si mar khatar si marna oo baabuur si dhaxmarna shidaal ba ku baxaya intaas oo dhan shidaalka iyo waqtigii iyo maxaa la raada ganaaxiba iyo xarigiba intaas ba way muteesteen Badri Koosar Maxamuud telefishinka Star Hargeysa